بسم الله الرحمن الرحيم. waa ku raacsanahay guddoomiyaha waxay ahayd in shacabka la soo hormariyo. madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda qaranka oo dhan, xildhibaanada labada aqal iyo dhammaan marti sharafta, marka ugu horreysa waa idin salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka labaad, caawa waa habeen taariikhi ah, waa habeen farxad leh, waa habeen hami iyo didiilo ula ummadda Soomaaliyeed. usbuucii la soo dhaafayna wuxuu ahaa usbuuc maamuus mudan oo ay ahayd usbuucii aan u dabaaldegnay 26 Juun. waxaa kaloo ahayd ciiddii muslimka. caawa waxaan isugu nimid inaan qaybsanno farxadda xorriyadda ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa marka inaan ku bilaabo inaad ogaataan xorriyaddan in dad Soomaaliyeed ay dhiiggooda u soo bixiyeen. waxaan rabaa inaad ogaataan in dad Soomaaliyeed ay u jeedeen wax iyaga ka macno weyn wakhtigaas, inay naf iyo maal iyo dhiig u bixiyeen si annagu aan u helno noloshan maanta xorriyadda ah. waxaa la rabaa qof walboo Soomaaliyeed markaa inuu caawa isweydiiyo, ma aha muxuu dalkayga ugu tari karaa, maxaan anigu dalkayga ku tari karaa. waxaan xasuusanaynaa walaalaheennii uu ka mid ahaa axmed gurey, sayid maxamed cabdulla xasan, faarax omar, sheekh bashiir, sheekh xasan barsame xaawataako iyo walaalaheennii SYL. waxaan mar walba xasuusan doonaa walaalkeen tima cadde, xaaji aadan afqalloox iyo walaalkeen cali sugulle. waxaan weligeen xasuusan doonaa dabayshii caafimaadka qabtay oo wadatay xorriyadda oo nooga timid gobollada waqooyi. waxay ogaayeen inay midnimadu xoog tahay. waxay arkeen in kala taggu uu hoog yahay. waxay ogaadeen inay qabyaaladdu gudcur tahay. waxay arkeen inay qarinnimadu ilays tahay. waxay ku hamiyeen in haddii shacabka ka dambeeya ay ku noolaadaan dawlad la'aan, inay dawlad la'aantu tahay jab, inay tahay dhabarjab weyn. waxay ogaadeen inay dawlad la'aantu keeni doonto qabjab. waxay ogaayeen inay ummadda Soomaaliyeed ku keeni doonto qalbijab. gumaysigii ay la soo dagaalameen markii ay warqado isu qorqoreen iyo sahmiyayaashiba waxa ay qireen inay dadka Soomaaliyeed yihiin geesiyaal caqli badan, waddaninimadoodana aanay ku soo arag dalalkii ay hore u gumaysan jireen. waxay qireen inay dadka Soomaaliyeed ahaayeen dad ku bixin doona wax walba si ay dalkooda u xoreeyaan. maanta waxaan barbar dhigaynaa maalintii ay walaalaheen xorriyada u dagaalameen. waxay iska xoreynayeen gumaysi iyagoo raba inay xorriyaddooda soo ceshadaan. maanta annaga waxaana hor taagan argagixiso, waxaana hor taagan abaar, waxaana hor taagan kala qoqobnaan, waxaana hor taagan qabyaalad, waxaana hor taagan rajadeenna oo daciiftay, waxaana hor taagan hamigeennii iyo qabkeennii oo hoos u dhacay. iyadoo ay intaasina hor taagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiin yar. iftiinkaasi waxa uu yahay shacabka Soomaaliyeed 75% waa dad dhallinyaro ah oo ay da'doodu ka yar tahay 30 sano. walaalaheennii soo xoreeyey dalkanna waxay ahaayeen dad dhallinyaro ah, SYL-ka oo ay ku jiraan 16 jiro. maanta waxaa noo kacay dumar Soomaaliyeed, waxaa noo kacay culummo dhallinyaro ah, waxaa noo kacay dhallinyaro is-abaabulay oo ay ka mid yihiin caawi walaal, isxilqaan, ubaxa caasimadda, socdaalka nabadda iyo qaar kaloo badan. laakiin waxaa la rabaa qof walboo halkan fadhiya iyo dhallinyaradeennu inay isweydiiso hal su'aal: maxaad u ogoshahay inaad ku difaacdo xorriyaddan? maxaad ku ilaalinaysaa qarannimadan? maanta ayay dadka Soomaaliyeed fursad haystaan. madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo dhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhido
waxaa hor taagan hal su'aal waa inaad ogaataan fursaddan haddii aan uga faa'iideyn weyno ummadda soomaaliyeed in kulligeen ilaahay uuna xisaabin doono haddii aad rabtaan in sharaftii iyo karaamadii ummadda la soo celiyo maanta ayay tahay codkaas kooban kadib waxaan ku soo dhawaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo mahadsantiin